dhinaca kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre oo kaga digay maamul goboleedyada dalka in la musuq maasuqo ka hortaga caabuqa dilaaga ee covid-19. qodobkaasi waxay noo faahfaahinaysa wariyahayaga Maryam Maanka. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa gudoomiyay shir ay ka qayb galeen gudoomiyaasha gudiyada ka hortagga COVID-19 ee dowlad goboleedyada oo looga hadlayay dardargelinta dadaalada lagu xakameynayo faafidda iyo saameynta bulshada uu ku yeelanayo cudurka COVID-19. gudoomiyaasha gudiyada dowlad goboleedyada ee ka hortagga COVID-19 ayaa kulanka kusoo bandhigay warbixinadii ugu dambeeyay ee dowlad goboleedyada iyo caqabadaha jira. ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo cadeeyay in dowladda federaalku ay dadaalkeeda oo dhan isugu geynayso wax ka qabashada COVID-19 ayaa ku baaqay in wadajir loo wajaho cudurkan lana jibaaro dadaalada maadaama lagu jiro xilli aad u adag. dowladda oo ku dadaalaysa xakameynta iyo saameynta bulshada ee cudurka COVID-19 ayaa hirgelisay xarumaha caafimaad oo lagu daryeelayo bukaanada, waxayna dhanka kale cashuur dhaaf iyo canshuur dhimis u sameysay cunada aasaaniga u ah nolosha iyadoo sidoo kale wado qorshe lagu caawinayo dadka u nugul saameynta ka dhalanaysa tallaabooyinka lagu xakameynayo cudurkan COVID-19. Maryam Maxamed Cali, Radio Wadani TV.